Soomaalidii hore waxay caado u lahayd oo ay maartay samayn jireen garyaqaannimo wax la yiraahdo. Waatan gabay ku darnay markaan Soomaalida dhaqankeedii dabeecadda ka hadlayay maxkamada ardayda fadhida oo mushahar qaadan maxkamada ardayda fadhida maagiyo ismoodsiis haddii la isku dhaafo haddii laba ismaan dhaafto maslax iyo tolimada haddii lagu miidayn waayo mudciye madacalay sidii maraga loo qaado rag mabaadideedii yaqaan marinka loo raaco maxkamada ardayda fadhida oo mushahar qaadan waa maara aan leenahay magaca noo yiil marka waxa jirtay haday dadku isqabtaan caadadeeni caada dhaqameedkii waxay ahayd horta in odayaashaas waxay isku day jireen maslax inay ku daan labada qolo ama labada nin ama labada qofeys iyo walaal nin iyo gabadhiiba ha ahaadeen haday maslax ugu taag waayaan halkaas ay gar bilaabi jireen gartaas ay markaa u naqaano mudciye madacali wax leeyahay qaadaano si aan shariicada ka fogeyn bay u qaadi jireen inkastoo meelaha qaarkood ay ku kaga leexan jirtay xeer beegtii la oran jiray oo ay xeerar iyo raacaan marka hadaba ragga waxa kamid ahaa rag badan oo caan arinta ku ahaa waa jiray laakiin waxa kamid ahaa Faarax Maxamed Saweyne oo Faarax Saweyne loo yaqaanay Soomaalidu imaka ay markay hadal hayaan yiraahdaan in Saweyne waxa jirtay hees uu mariyay in la oran jiray Xaaji Gujis garta in Saweyne loo geysan jiray gaasiray inaga yeena kala guraya markaas wuxuu adeegsanayay heesaadkaas gabadh laakiin ujeedka laga leeyahay waa garta in Saweyne loo geysan jiray marka in Saweyne laba hadalba waa jira abiiba Saweyne la yiraahdo oran jiray Maxamed ana waa la yiraahdaa laakiin sida rasmiga ileen waxa weeye nin awlaadiisa dhaqantaa oo la yaqaan Faarax Saweyne laftiisa la oran jiray marka laakiin erayga maanta Soomaalidu sida u taqaano marka garaha iyo la soo qaaday Soomaaliyeedii hore in Saweyne ayuu caan ku yahay oo loo soo qaatay dugsiyo ku magacaaban waad aragto saas ku magacaabay marka ninka Faarax baa la oran jiray garyaqaana oo tan qura ma garaha loo igmado iyo arrimaadka noocaas ayuu ahaa hadiyo goor ragii noocaas ahaa ragii cadaaladda isku day jiray iyo islaaxa raad fiican bay ka tageen maanta isagu raad fiican iyo dad fiican ayuu ka tagay rag badan oo garta leexin jiray ama hadii alla ka dhigo ilaa waxana waa arrin lagu aaminay ninku aaminayna khiyaanin baa ayay ahayd marka dad badan oo noocaas ahaa oo maanta aan raad fiican ka tagin way jiraan oo raadkeedu uu baabaay ama dadkoodii iyo muxuu ahaa wasiirtoodii wixii ay xumaadeen oo loo oran karo wasiina shaqaysteen weeyii marka Faarax Maxamed ninkaas uu ahaa hadaba hadaynu go'do arintan oo ay ku soo baxday hadii alla ka dhigo in Saweyne ama magayso inuu ku shaaxo baynu maanta gelayna arintan u soo soconaana waa gartii ka dhacday ninka la yiraahdo Cashuur iyo ninka la yiraahdo Fooley ayaynu ku soo soconnaa siday ku timi waxa weeye Cashuur wuxuu ahaa nin sodoga Faarax Saweyne intiisa ayuu qabay waxa kale oo isaguna intiisa qabay in la yiraahdo Fooley marka way la deganaayeen in la yaal bay u ahaayeen labada ninba Cashuur waxa dhacday yaradka habluhu bariga hore waa kii adkaa ee faraha badnaa yarad buu siiyay ninka la yiraahdo Fooley yaradkaas uu siiyay wax la yarad sooran bay Soomaalidu caado u lahayd oo ah inuu yaradkii ninkii la siiyay ilaa waa nin la maamuusay inuu wax soo celiyo soo ninkii wax ku celiyo laba halba caadi u lahayd Soomaalidu hore dhaqan ahaan markaad eegto hambada oo ninka hadii la sooriyeeyo oo hadii alla ka dhigo cunto loo sameeyo waxa lagu sooriyeeyay caadadu waxay ahayd ninka walaw reerbaha u soo hoydo xaafadiisana ha joogo hadee jeer ninka waa la burinayay oo waxba maartay
ولا ما موسى سنة وحعادة هذين وحنبيو oo gabayo badan iyo mahmaha badan iyo hadalka ay ku jirtaa oo saddex lama raaco Soomaalidu tiraado ma horeeye iyo mahaasawshe iyo mahambeeye baduna taqantada uu maahe meel badan bay gashaado xitaa hadalka ragga waa loo hambeeyaa ama cid kale waa loo hambeeyaa hadad gula joogto maaha inaad mid walba qodob walba inta toban qodob laga hadli lahaa waxba adigu waad ka hadasho waxay ahaan jirtay in xitaa hadalkan la isku hambeeyo marka hadii la ka dhigo waxa soo dhan waa dhaqan wanaagsan oo maanta loo baahan yahay yara soo ramusaasoo kale uu haayo ninkii la sharfay wax la siiyay ee la maamuusay inuu iskala aamuso oo wixii iska xareysto waa laga fiicnaa marka caadada sidaas ahaydo ninka ka leexdana waa la ceebin jiray cashuur wuxuu siiyay xoolad yarad soorana ayuu siiyay oo u celiyay marka waxaana celiyay oo hadii la ka dhigo celiyay cashuur baa wuxuu u celiyay ninkaas la yiraahdo foolay ogaadeenaha cashuur wuxuu ahaa nin cali gari oo dhul bahanta markaas sidaas markay halka mareysay waxa dhacday muddo markii la wada yaalay oo hadii alla ka dhigo la deganaa oo ninkii uu markaa in badan la wada deganaa waagi dambe wuxuu daba inuu guuro marka oo uu guuro wadankoodii odaygii sodogii ahaa oo aabihii ahaa sodoga aabba loo isticmaalaa ayuu u sheegay oo aabba waxaan doonayaa inaan guuro wadankii aan deganin iyo tulkay jiray aan u guuro marka hadii waxaan doonayaa inaan tabaabulshayso aan hadii alla ka dhigayo aad arinkaas nala ogaato oo saasaan muxuu ahaa ku soo wargeliyay markuu dhowr jeer hadalkii ku yiri oo ujeedaduna ay tahay wixii hantiye markaa joogto oo geelika hadii alla ka dhigo hashi way tarantado waxay dhashay iyo waxyaabahaas hadii alla ka dhigayo iyo hadii dhowr halaad ahaayeenba markaas taasu markaa u dan leeyahay in la isku habeeyo oo cid la kaxayso oo warka markii hadalkii muddo uu maartay ku marba dul mariyay oo ku celceliyay joojiyaaba waxaan doonaynaa maalinta noocaas ee dhow inaan aan baxno oo guurno oo hadii la ka dhigo kolka wuxuu yiri reerka waad iska tagi kartaa waad iska guuri kartaa iska tagi kartaa haaskaaguna ku madax banaan yahay aruurtaaduna oo markaa badnayn oo markaa gabadhu inan ay u leedahay hadii alla ka dhigo waa diyaar iyaguna iska diyaarsan yihiin iyo adiga saddexdaas aad tihiin waa iska tagi doontaa hadalka markaas ku soo baxay umiyaan aabes xoolo oo ii joogin waxaan doonayaa xoolihii wixii ii joogeen inaan xoolo ka dhigano ka haysano kolkaas uu yiri waxba kuma joogan guriga halka waxa ka bilaabantay markii hadalkii la soo gaaro in markaa uu markaa arintaas noqoto inaan waxba loo haynin oo sodogii uu ku noqday geeli oo markaa hadii alla ka dhigo uu yiri hadii alla ka dhigayo muxuu ahaayay waxba anigu kuma hayo taas waxay socoto waxay noqotay oo ay dhaafi weyday in ay gar gasho sodogii oo garamaya waa wuxuu laakiin hadii ay ka maarmi weydo Soomaalidu waxay ku mahmaadaa sodoga lama hadlo laakiin sodoga wala la hadlaa laakiin hadal xun ayaa la oranay gartuna inkastoo ay qalaadhahay haddana waa gar oo kuma jirto hadalka xun maxaa yeelay waa xaq qof leeyahay haduu ka maarmi waayo uu doonayo arinkaasi wuxuu soo gaadhay in ay noqoto halayna eego hadii ba arinkaas haduu jidiya xijida hadii alla ka dhigo aynu aabade kala qaadano taas ayay ku soo ururtay hadii uu ka warwareegayna markii dadkii gaadhay deriska ahaa iyo deegaankii waxa la markaa ay noqotay oo qasab ku noqotay in garta la galo oo la yiraahdo hadii alla ka dhigayo cashuurow ninka garmari oo jid bixi gartaas la qaaday garta niman gudi la yiraahdo ayaa loo diri jiray horta gudi intaynaan hadaynu wax yar ka ninaano gudi kelmadda gudi يعني معنى يال شايب حسوا حكم ذا وحي مركا أريني ترتيبي جودان
وسي وجودان يعني وحاجتي بيجودان وحاجتي بيضميان أما حاجتي بيهدلك وناتشيان وجودست معناه هو وناتشين markeen erebixin u noqono af Soomaaliya yeelay ninkaasi waa abaal magude iyo uu abaal guday yaaba hadalkeena kamid ah marka abaal baa loo galay dadista wanaag uu sameeyay hadii xaq kale loo eegana qofka marka aan buuriyada laga jirin wax leeyahay ma gudna hadii buuriyada la jirin wax leeyahay waa la guday marka waa la hagaajiyay weeyi marka gudi waa wax hagaajiso af Soomaaliyan sida uu ogaada marka gudidaas la ururiyay gabayadeena waa ku jirtaa gabay garasho gudi ururtay xaajada markay gacan togleynayso gartu nimay bayaan ugu dhacdiyo gobada liishaanka gabaan loo celceliyaa marbugada uga laacay inaan labadu goortaas inay soo la garan maayo gartaas la galay faraxsan weyne oo reerkii kamid ah gartay baa lagu daray faraxsan weyne kalsooni buu ku haystaa cashuuro waa ogol yahay inuu nin garyaqaan yahayna waa og yahay waxaan u arkaa inuu inankiisii yahay oo hadaa la ka dhigo gabadhiisii qabo oo wax ka difaaci doono oo markii faraxsan weyne garta uu ku jiro inaan xaqiisa loo soo maraynin sidaas uu markaas uu wataayo isagaaba markaa hadaa la ka dhigo faraxsan weyne si gaar ah oo kalsoon ama muxuu ahay u tirsanay garta markii la naqay ragaas mid ku jireen sayid taay u eegeen waxay u muuqatay in maartay hasha iyo wixii ay dhashay geelo tiro markaa haba in lagu leeyahay cashuur ayaa markaa u muuqatay taamarkii go'aankeeda gaadheen ayaa loo yeelay si caadadu ahayd cashuur iyo ninkii kale ay sayeen oo foolay lilaado dadkii garta dhigeysan lahaaba jaasman baa la bixinaya hadalka yaa jeedinaya la yiri waxa loo gartay faraxsan weyne hadalkii buu naqay waxa kamid ah gartii uu jeediyay ereyadiisi hirgalay waxa kamid ahay halka maartay hadalka ku bilaabay isagoo qancinaya ama meesha ka saaraya hadii alla ka dhigo waxyaabihii la filayay ama uu filayay midna cashuur oo kale gariso dogma taqaan seedina ma taqaano ilaahay bay taqaanaa cashuur garti waa laga helay iyo hashi waa laga helay sida ayuu yiri waxa la sheegaa halka markay mareysay waa ninkii ugu kalsoonida badnaa cashuur kolkii sida ay yiri cashuur waxa uu muuqatay inay marka arintii faraha ka baxday marka xeelad kale inuu isticmaalo arin kale inuu isticmaalo oo marka hadii alla ka dhigo oo marka ka baxo arintan iyo gartan iyo waxaan boo wuxuu yiri hadii ba laga helo yaa iga qaaday buu yiri cashuur waa iska kacay markaana faraxsan weyne wuxuu yiri aniga garta sheeg baa la yiri ku dirir la ima oran buu yiri intaas markay dhacday hadii ay bihid mahayo umadu waxa la yiri cashuur cid kama xoog weyne tolkii iyo dadkii ninku maadaama xiliya waa la kacay wixii uu garta u helay waa la siiyay sidaas uu ku wuxuu ku guuray foolay wuxuu ahaa nin garyaqaanaho arada ogaadey ka caan ka ah buu ahaa markuu hadal furaya ee gole yimaado horta wuxuu u yeeray markuu ama bixi doono wuxuu yiri يعني waxaan doonayaa inaan ku abaalgudo oo kaaga abaalgudo sida wacan ee aad garta u noqday geesinimada iyo cadaaladda waxaa yeelay aad yani ninkan noocaas ka bayri waayay in yarna sida yahay waxa iga ka muuqatay in cadaaliye inaan ku abaalgudaan doonayaa ma dad baan ku abaalgudaa ma duuyan ku abaalgudaa ma carab baan ku abaalgudaa faraxsan weyne wuxuu yiri wariyo anigu hadii alla ka dhigo wax abaaloon haddaan ka rabaa ma jirto dadna inaan taayir badalta iyo gabadha dimaashideeyo dadaadi ugu abaalgudaysaa ma jirto dunyana halaha garta ku soo baxay waad wada taago dunyada ugu abaalgudaysaa ma jirto wixii kalena adiga ay ku yaalin marka nabad geliyo
waxaa dhacday warra meer dheel buu ku dhacaabay Soomaalidu sidaada dhagaxna meeldu ninkaas umadu u garnaga jiray nin tolkii dhexdiisa caan ku ahaa kolkaas uu meeshii la isugu yimaadeen mahawiyaba ama arrin kasta oo hadii la ka dhigo adkaadaba ama gar kasta oo hadii alla ka dhigo muxuu ahaayay go'aankeeda meel lagu tiiriyaba wuxuu yiraahdaa hadal arrintaasi inaysan weynina loo geeyay waa sida arrintaas inaysan weynina loo geeyay waa sidaas markaa Soomaalidu wararkeedu waa isu tafi jireen waa isu socon jireen sida ay ku shacab waxday ku caan noqotay kelmaddaas ilaa ay iminka inagu soo gaadhay suugaanteena ku jirto inaysan weynina u geey marka arrinku maartay hadal meel xoga adkaaw dadku waxaad maqashay inuu yiraahdaan inaysan weynina u geey sida weey inaysan weynina u geey marka raggii hore rag cadaaladda ku caanana waa lahaa rag wixii hadii alla ka dhigo la kulmo ka abaal gudo aan qarinna waa lahaa sidaas aynu halkan ku soo gaadhnay oo dhaqankeena hore ahaan jiray arrimaadkaas ayaana hadii alla ka mid ah Soomaaliduna waxay ku mahmaahi jirtay ilaa imkana jirta gari laba nin kama wada qosliso barnaamijkeena halkaa maanta haynoo joogo waa inoo kulamadeena dambe iyo barnaamijyo kale hadduu Ilaahay inoo ogolaado way fara badan yihiin laakiin oo yani waxa weeye muddo fara badan oo xeebu ku jiray waxa kamid ahaa barnaamijkii Kooramarisa inuu ka hadlaynay ragii ku jiray kamid ahaa meelo fara badan oo inaan hadda halka ku karin oo ka qayb galay waa jirtay waliba inta arrintaas dhacday wixii ka dambeysay iyo ka horba يعني wuxuu leeyahay taariikh aad u fara badan buu leeyahay oo waqtiyo fara badan oo ma ay door u baahan in hadii alla ka dhigo loo helo